بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي walaalahayga qiimaha iyo qaayaha badan iigu fadhiya ee aan ka wada soconno bartaan aan ku leeyahay YouTube-ka ee Shukri Musa Talent Channel mar kale iyo waa barnaamij cusub asxaaba intaana barnaamijka cusub aanan u guda gelin waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo mar walba channelka inuu idinka barbar istaag idinkaga baahan yahay si uu channelkani heer ku gaaro aan live wada sheekaysan karno haddii allaha awoodda sare la yiraahdo waxaan qorsheynayaa haddii channelkani uu gaaro heer maaragtay live aan wada sheekaysan karno oo la ii ogolaado live inaan soo galo waxaa iga xigta inaan gaaro kun subscribe inaan gaaro ayaa naga xigta inaan live barnaamij ah aan soo geli karo idinkana aan qadka idin furi karo oo aan wadaagi karno fikiro haddii allaha awoodda sare leh uu ogolaado oo anigana ii wanaagsan runtii idinkana idin wanaagsan ruux walbaa fikirkiisa oo directiyo halkan kusoo gudbin doono hadba qodobka aan soo qaadano si aan markaa u qaadaa dhigno haddii rabbiga daa'inka ahi uu yiraahdo uu noo ogolaado insha allahu tacaala dadaal yar ayaa naga xigay inaan kun subscribe aan gaarno biidnillahi kariim waan rajaynayaa inaan mar walbaba aan gaari doono meelaha aan hiigsanayno iyo meelo kasii sarreeya haddii allaha awoodda sare la yiraahdo soomaali baan nahay haddaan soomaalinimo isu barbar istaagno oo aan cid walba oo meel hiigsanaysa aan garabkiisa noqono waan hubaa inaan guulaysan doono dhammaanteen sida aan u dhannahay marka saaxiibadaydiio waxaan rabaa barnaamijkan cusub caawa wixii aan kusoo qaadayo inaan idin sheego waxaan doonayaa macnaha guurka inaan uga hadlo micnaha guurka ayaan rabaa inaan barnaamijkan si yaroo kooban oo aanu wada fahmi karno aanna maaragtay aad aan u dheerayn doonin in aan ku qaadaa dhigno haddii allaha awoodda sare leh uu ogolaado saaxiibayaashayda qiimaha iyo qaayaha leh asxaabtayda qaaliga igu ah guurku waa tiirka aayaha nolosha khaasatan marka aanu nahay bulsho islaam ah oo aan ka sii nahay soomaali maxamed guurku waa qiimaha qoyska islaamka ah wiilna intuu single yahay ama uu keli yahay ama uu iskaabulo yahay qofba siduu u yaqaano oo guriga hooyadii joogo qiimo badan ma yeesho macnana ma sameeyo waayo waa keligii gabarina isagay la mid tahay kadaalik waa keligeed markay guriga hooyadeed canjeerada ka dubayso waxba macno badan ma samaynayso qoyska uma samaynayso mudnaan badanna lama siiyo waayo waa gabar ay iyagu dhaleen oo reerka ka mida oo marba dhinac loo burbursado oo dhoocil yar laga soo qaado oo la yidhahdo naa waxaa soo qabanaa waxaa samaynaa waxaa maxaa u samayn weysay lagu canaanto noloshu goormay qiimo leedahay marka gabadha iyo wiilka soomaaliyeed ay guur xalaal ah sunnatu rasuulillaah isugu yimaadaan oy guri wada degaan labadoodubana ay noqdaan dad u bisil nolosha oo raba aayahooda inay dhistaan oo raba inay horseed u noqdaan qoys islaam ah oo soomaali ah oo la rabo in laga dhaxlo aayo fiican iyo owlaad wanaagsan oo tarbiye islaamiya lagu soo tarbiyeeyo markaas ayay sharaf yeeshaan reer meel wada degay ee noloshooda qaabilay ee u tafaxaytay inay hooyii aabba noqdaan oo ay qoys islaama hoggaan u noqdaan markaas laba isfahamsan oo allayleh dadkii aan soo dhaldhaliilnayna laga hufay oo laga haadiyey maxaa dhaliisha loo sheegaa in laysi saxo oo laysqalad saxo mar haddaan qofka dhaliishiisu aanu ogeyn uu isla saxan yahay uu saxano toosare isla yahay ma garan kara dulduliladiisa waxaan dhaliilaha usoo sheegaynay oo dhan waxay ahayd in la helo qoys soomaali ah oo islaam ah oo dhaqanka iyo hiddaha iyo diinta intaba ku toosan inaan helno oo hooyo iyo aabe soomaaliyeed oo ilmahooda diintooda ku tarbiyeeya oo dhan walba ka dhisan oo hooyo aabe isfahamsan ah oo isfahmi waa uuna jirin oo qalqallooc uuna jirin oo luuqluuq uuna jirin oo iska hor imaad uuna jirin oo balwad iyo bakti ayna jirin inaan samayno oon hagaajinno
ayaan isu soo qalad saxayna inaan saas isu fahamnaa waa muhiim mar haddaan qofka dhaliishiisa loo sheegin qofkan dhaliishaada kuu sheegin hadda hore kuuma wadin waxnana isuma tihiinba qofka haddaad fiican tahana bravo haddaa xun tahana ka sii wad meeshaada ku yidhaahdo ha sheegin kaas waa cadowgaaga maaha gacalkaada marka waxaan wax isugu sheegayna soomaali maxamedey dhallinyaradeydii macmacaanaday maxay ahayd ilmahayga oo kala ahaayo sababta aan isu soo qalad saxayna waxay ahayd see loo helaa qoys isku toosan oo Soomaaliyeed ma garat inaa hadda ka hor shirbay markaas wuxuu yiri ul toosan oo tubtaal wixii looga tagay qabtaa uu yiri yaa marka anigu waxaan rabaa ul toosan qoys toosan oo Soomaaliyeed sidee dhalinyaro loo dhisi karaa oo labada dhinacba ka dhisan oo wiil iyo gabar haliyeeye ah ay hogaamiyaan awlaaddoodana hadhow ay noqdaan sidii hooyadood iyo aabahood ya ilaan waxaa la ogaaday oo la hubaa aabaha siduu u dhaqmaad u dhaqmi hooyadana sidee u dhaqantaad u dhaqmaysaa ilmuhu mid ma yeelaan yaa la isku daalin mid ma yeelaan waxaad adigu u sheegto ma yeelaan waxay kaa arkaan ay sameeyaan marka sidee loo heli karaa qoys dhaxalgal ah oo isaguna toosan oo hooyo aabbo wada toosan oo tarbiyada islaamka ku toosan oo dhaqanka Soomaalida ku toosan oo diinta ku toosan see loo heli karaa waa taas tan aan rabno inaan ka hadalno guurka wanaagsan sidee loo heli karaa waxa loo heli karaa laba isla toosan in la isla helo wiil iyo gabar wada toosan oo labaduba ka go'an tahay in ay reer wada dhisaan mid walbaana dhinaciisa uu guntiga dhisha isaga dhigo oo qof wax ku hakradaa jirin oo qof lagu u laaban tahay jirin oo qof balwada iyo jiiro kala ka saayo oo jirin oo ruux walba ay ka tahay inuu guurkaas u galo aayihiisa iyo mustaqbalkiisa inuu yahay awlaadda uu dhali doona dhaxal fiican uu reebo tarbiya fiicanna uu ku tarbiyeeyo saaxiibayaal waxa jira maansooyin dhowr ah oo Soomaalidu ay uga hadashay guurka waxa jira heeso waxa jira gabayo waxa jira geeraaro adiga maansada noocyadeeda kala duwan ee Soomaalida waxaan rabaa mid kamida inaan idin soo qaado jira kuntiisii adoon qaab u garanayn aad gacan u ridatee gabdhow guurku waa calaf waa god wada madow oo waxaa jira kuntiisii adoon qaab u garanayn aad gacan u ridatee iyo libin iskarabtaal gayi wada naga adiyo barwaaqadu gimgimantiyo waa gole abaar kulul degel gaajo lagu bo'o waa guul dariyo iyo libin iskarabtaal wada naga adiyo barwaaqadu gimgimantiyo waa gole abaar kulul degel gaajo lagu bo'o
cidina garasho uma laha awood buu la keligii u gaaru leeyahay anna galabtu taladay gocashadon ilo obiyo guntigoon u xidho samir ayuu hadalku iga go'an yahay cidina garasho uma laha awood buu la keligii u gaaru leeyahay anna galabtu taladay gocashadon ilo obiyo guntigoon u xidho samir ayuu hadalku iga go'an waad maqasheen soo ma wax badan oo badan ayaa guurka laga tiriyay soomaalidu waxay tiraahdaa guurku waa god mugdi ah oo gacan loo deeyey maxaa laga wadaa ya waa god mugdiyood gacanta gashatay wax kaaga soo baxayana aadan garanaynin inay xun yihiin iyo inaysan yihiin ya ilaahu noo samee oo dhallinyaradeenna guurkooda samee oo kuwaan dhalnay iyo kuwa aanan dhalinin dhib la'aanta dhalnee soomaaliyeedba guur toosan oo xalaal ah rabbiyuu ku hadeeyey adiga awoodda sare iska leh kuwa iswalaashada oo iskaalmaysta oo dhab isu jeclaada oo guurkooda iyo noloshooda iyo aayahooda iyo owlaadooda ka wada fakarana allaha awoodda sare iska leh ha ka dhigo owlaadeenna qaaliga ah walaalayaal barnaamijkan aan guurka uga hadlayo haddii alla yidhaahdo barnaamijkan iyo mid kale ayuu noqon doonaa oo aan ku qaadaa dhigi doono insha allahu tacaala guurka iyo axwaashiisa marka guurka fiicani wuxuu ka go'aa wiilka iyo gabadha isguursanaya taas horta aan isla meel dhigno iyagu sida ay qoyskooda u yagleelaan oo ay u wajahaan ayaana u noqdaa aayaha guurkooda iyo tarbiyada owlaadooda labadaba aabbaha fiican iyo hooyada fiican ayaa ka taga owlaad fiican oo dhaxal wanaagsan ay u reebeen haysta saaxiibayaal qaybtan oo qayb dambe ay ka dambayn doonto oo aan guurka maxay ahayd wanaagsan ee dhabta ah sida laga rabo guurka aan uga hadli doono halkaas ayaan rabaa inaan kusoo afmeero haddii allaha awoodda sare leh uu ogolaado kan barnaamijkan kan ku xiga ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa inta dambe ee xaaladda guurka fiican ee laga rabo qoyska soomaaliga ah sida la rabo in uu noqdo oo aan barnaamijka kan ka dambeeyo kusoo afmeeri doona haddii allaha awoodda sare leh uu ogolaado intaan barnaamijkan asxaabay mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaadiinada eebbe ha ahaato korkiina nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh